ruuxda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajabisay dad fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhex qayliyo. waxaa aniga dhex qariya rag kaliya ma ahan waa rag waa dumar waa hooyooyin waa ilmo de waa la yaabaa adduunkii dhan de marka quruxda soo bandhigay de anaga aqaan ku jira de oo xoohayo ka qurux badanahay. qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan gabdhaha reer Galmudug ayay la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhex qayliyeen kana heleen quruxdeeda. Samara oo baryahan laga waayay baraha bulshada ayaa iminka lagu quraan saaraya dugsi quraan ku yaala degmada ay ku nooshahay Gurceel waxaana booqanay dugsiga lagu quraan saarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ay ku akhrinayaan kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini'aadamka. Samara oo nala hadashay quraan saarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdo ladin oo laga dhex qaylinayo loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay isquraan saarto. qof haba yaraatay ka yeelay ma jirto gabar baa ka qurxoon anigana waan ogahay inaan qurxoonahay bulshadana way ogtahay ilaahayna way ogyahay marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa de qof inaan qurux badan ahayn de bulshada ay sheegtay hadartana is sheegayo quraasar bay socday maanta ay soo gabagabay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh de adiga ay daawanayaan de maanta wixii ka bilowday waxna igama qaadi kartay il iyo waxaas oo dhan horta waxa igu daran wax kale ma ahan waa marka laamiga aan maray habeenka cashada soo doonanayo de markaas baa horta igu daran de aniga xataa wallahi waan xishooda toobto dadka dhan ay soo eegaya kor aan baan dareema madaxa sakay xanuunay de waa ka de gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay de rag waxa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya laakiin gabar ka dhex qayliso lagu arkay waa ma dhicin adduunka aan hadda ugu horeeyo adiga ka dhex hadlo dumar de gabdho aan garanayo haan hebla dhigi kala maxad maraga nagu qurxoontahay qaraar baa haayade anu qaraarayaan laakiin waxa la yaabaa ka qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay station dheela wallahi si fiican bay soo dhaweeyeen maadaama ay quruxdooda soo bandhigtay anigana waxaan kugu dalagalnay quraan inaan ku saarno يعني أيقونو فرحات بيود أنا جنا فرحات بإيه قرآن كأنه واحد كسر واحد كله تهويرات مالهن حجاب قرآن كحجاب بإيه هاي قرآن لجموه مرمى بتاعتن بهويراته قروح المركز صبري جنا وحن سكر قرآن ك يحوه يشرب بدن أندريم مسكح سكي حنونته يعني قرب بدن أندريم صدرت أيان قرآن كسر يدك بدن ويجرح قليته ما أنتوا حكي ما دكتور قرآن صدق ما يا قرآن يسوع ساراي إيش بالأدك يعني قرآن ساراي إلهي مهدي الحمد لله وأنتو إيشو جوابي حضر أيان كإمادة أنا وسامها والله هرت قرب بدن حتى أنا وهبينكي والس حاولنا مسكح الجوجوع ده واحد صدق واحد يقول بلا هبينك برا برشة كوسا بيري قفل بنا جالسين بدي كرتيد مركو أركيسا وهالينا يقولوا حدي دني حوها تساس من حوها أن قراص كسارة والله هرت مرة بحوها وكوا أن أدقوا هل أنت كوب بورن كوا إسكعاتا كوا من مذو لكن دني هلك مليت واحد صار نرشي ده هرقة سوتها وشي ده قفن دوين ده سندر ده إلهي حاول يشوف الشمال ده ما استلمسترك أنا استلمها بكلام بقروح ده أنا بسكون أحسن بقى ناقبورنا إنه يقول حنت ما بقى مسنبر وهكا ناقبورن موضوع اللي ما نقرته ما يا ما بقولوا تركيني مدحنا يرتاي يقول إحنا بإلهي كتاع ناقبورن لا لا آمين 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 قرآن إلهي القرآن إلهي وفسر خير لو جالسين لا آمين لا آمين عد فتح